wariyaasha ka howlgala magaalada Buuhoodle ayaa maanta shir ay isugu yimaadeen waxay tacsi tiiraanyo lagu diran wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo dhawaan lagu dilay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Suxufiyiintan maanta kulanka ku yeeshay deegaanka Buuhoodle ayaa sheegay inay si weyn uga murugaysan yihiin dilka naxariis darrada ee loo geystay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis iyo tacadiyada ka dhanka saxaafadda hadda caadi ka noqotay Soomaaliya. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha idaacadda daljir xarunteeda magaalada Buuhoodle ahna gudoomiyaha suxufiyiinta deegaanka Buuhoodle Khadar Cawl Ismaaciil. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Buuhoodle ee kulankan isugu yimid. walaalayaal isma weydiinayno marka hore waxa uu ku saabsan yahay iyo ujeedada halkan aynu isugu nimid. kulankeenani waa kulan murugo, waa kulan tacsiyeed oo aynu markaas ku muujinayno dareenkeena ku aadan iyo sida aan uga xunnahay dilkii arxan darrada iyo axmaqnimada xambaarsanaa ee toddobaadkii hore bilowgiisii lagula kacay allaha u naxariistay wariyaheena ka midka ahaa ee Soomaaliyeed ee lagu dilay magaalada Muqdisho Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis. marka ugu horeysa waxaan tacsi tiiraanyo la qaybsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. si gaar ah waxaan tacsida ugu dirayaa dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed aynu ka midka nahay meel kasta ay joogaan. tacsi gaar ah waxaan u dirayaa eheladii qaraabadii iyo qoyskii uu ka tagay allaha u naxariistay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis. waxaan leeyahay walaalayaal dhammaan haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed haddaynu nahay suxufiyiinta khaasatan qoyskii uu ka tagay waynaga wada dhintay. alle waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janno siiyo inagana dhamaanteen samir iyo iimaan iyo bedel khayr qabayna ka siiyo. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah suxufiyiintii maanta shirkan ku qayaashay magaalada Buuhoodle waxay dhamaantood cambaareeyeen dilkan foosha xun ee loo geystay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis waxayna tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis. horta ugu horreyn waxaa halkan tacsi tiiraanyo looga dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka la dilay Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis lagu dilay magaalada Muqdisho waa wariye ka shaqeynaya TV-ga caalamiga Home Cable TV kaasi oo dishay gacan ka xaq daran. waxaan leeyahay eheladii iyo qaraabadii ka geeriyooday idinka qolada kama dilaan Cabdisalaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan ka dhintay. inta waxaan ku darayaa hadalkii xubniga wariye baa dhameeyay kaliya waxaan u baxayaa kelmad ah arrintii la sheegay dadkii lagu toonsanaa in la soo qabtay Cabdisalaan. dowladda kumeelgaarka waxaan ka codsanaynaa ninkaas haddii lagu helo dambiga dadka la soo qabtay inta la qabto Cabdisalaan meeshii uu ku dilay inta la geeyo in lagu toogto xilli waliba ay goobjoog ka yihiin dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed inta ku sugan magaalada Muqdisho. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. dhammaan waxaan tacsi tiiraanyo aan u dirayaa suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba tacsidaas oo aan u dirayno marxuumkii ku geeriyooday magaalada Muqdisho marxuum Cabdisalaan Xasan Xiis oo ay dishay gacan ka xaq daran oo ahaa wariye u hadli jiray ama u shaqeyn jiray hay'adda Home Cable. waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. kulanka maanta ay isugu yimaadeen saxafiyiinta ka howlgala ayaa loogu barardiiqay wariye Cabdisalaan Sheekh Xasan Xiis oo ka howlgali jiray telefishinka caalamiga Home Cable TV gaar ahaan qaybtiisa magaalada Muqdisho. Cabdulla Cabdiis telefishinka caalamiga Home Cable TV Buuhoodle.